haddii dadka adduunku wada indhalaayahay imise qof ayaad soo jiidan lahayd dun dadnimo iyo dabeecad wax dhaami lawaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga Soomaaliyeed soo dhawaada meel walbaad joogtaan iyo waqti kasta ay tahay. Dadka qaarkii waxay kaa filayaan mala xun, halka dad kalena ay ku malaynayaan in aad malabka uga macaan tahay. Midkoodna xaqiiqda ma hayo. Allah Azza wa Jalla ayaa og xaqiiqada dhabta ee aad tahay, isagaa mar walba ku xidhnow oo kaalmayso. Ruuxda jidhkaaga ku jirta waa sida beerta oo kale, adiga ayaa ikhtiyaar u leh inaad dhexdeeda ku abuurto ubaxyo qurxoon oo dareenka dadka soo jiita, rajadana soo celiya, ama adaa ka buuxin karaa qodaxyo dhaawac daran u geysta qalbiga qof kasta. Taasina waxaad kaga badbaadi kartaa adigoo hagaajiya naftaada si aad u noqoto qof wanaagsan. Hadafkaaga ku mashquul si aad u jeclaato noloshaada oo aad iskaga fogeyso in aad hesho waqti aad wax ku nacdo, murugoodo ama ku cabsato. Akhlaaqda wanaagsani waxay dabooshaa camal xumaantaada, halka dhaqan xumaantuna ay qariso qofnimadaada oo dhan. Ku dayashada dad kale aad ku dayato macnaheedu ma aha in aad gaadhayso ama helayso wax walba ay dadkaasi heleen. Dhulku waa badweyn, waxaana ku qarqoormay dad badan. Doontaadu ha ahaato mar walba cabsida Alleh. Guuldaro kastoo qofku ku timaada waxaa laga yaabaa inuu ka soo kabto. Hal guuldaro ayaa jirta oon marnaba qof ka soo kaban karin. Waa marka uu addoonku Rabbigii la kulmo isagoo caasi ah. Haddii aad nolosha ciriiri iyo welwel ku dareento, la imow salaad una sujuud Alleh adiga oo barya, maxaa yeelay ma jiraan wax kale oo ku badbaadin kara kaana qaadi kara kurbada ku haysata. Farxaddaada ha kaga hor sheekin qof murugaysan, awooddaadana ha tusin qof taag daran, codkaagana ha kaga hor hadlin qof aan hadli karin. Hadalkaaga ku cabir hadba dareenka qofka ku hortaagan. Dhis noloshaada dhinac kasta ay ka liidato, ku kalsoonow Allah, naftaada u sheeg in ay wax kasta oo wanaagsan qabsan karto. Ma raali gelin kartid dadka adduunka oo dhan, balse waad ka raali noqon kartaa. Noloshu marnaba kuma siinayso waxa aad jeceshahay, laakiin iimaanka ayaa ka dhigaya in aad jeclaato wax kasta oo aad haysato. Hubsiimo la'aan iyo degdegu qofku waxay ka dhigaan qof lumiya ammaanadii shakhsiyaddiisu ay lahayd iyo booskii wanaagsan ee uu bulshada uga jiray. Sida baytariga telefoonku u dhaco ayaa qofku iimaankiisuna u dhacaa. Ku siyaadi iimaankaaga xuska Alleh iyo xasuusta Rabbiga. Faafinta xumaantu waxay ka mid tahay calaamadaha lagu garto hoos u dhaca iimaanka. Ha siinin waqtigaa qof aan qiimaha garanayn, hana ku aaminin qalbigaaga qof aan Allah qadarinayn. Markastana faraxsanow in aad adkaysato oo dhibi ku soo gaadho uusan ku niyad jebin. Dadaalkaaga aad sii badiso, Ilaahayna aad tala saarato, waa wadada aad ku gaari lahayd guusha aad raadinayso.